السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة الحياة باشا تقرأ سعودة والدي والدري برنامج شيء نوعات سورة هذا ورشيني إلى عفوا مرتان برنامج سبسكرايب شير واتش لايك نوع على طبق هذا ما تبي سورة هذا برنامج شيء نوعات وحوي عطيتك قيد بدل عطيتك هيكون عتها صلب لعنا هيكون عين waxa xaqiiqo ah waxa ogaatay inay qaybo badan ku jecel yihiin sababna ku jecel yihiin sababaha ku jeclaan kara waa wanaagaaga waa qabiicadaada waa deeqdaada waa duqaadkaada waxyaabo badan baa lagu jeclaan karaa soo qof sabab la'aan ku nacay haddii aad aragto waxaad ogaataa inay qaybo badan sabab ku jecel yihiin midda kaleeto qof sabab la'aan ku nacay raaligelinna kaa diiday qof intuu sabab la'aan ku nacay haddana aad raaligelin ula tagtay oo qofkan sabab la'aan ku nacay waa raaligelin kartaa because waa bini aadam waxaa laga yaabaa inuu qalad fahansan yahay haddii uu raaligelin oo raalli oo ku dhaco haddii uu raaligelin kaa diido isagoo sabab la'aan ku nacay raaligelinna kaa diiday waxaad ogaataa qofkaas wax ahmiyadda agtaada inuuna ka lahayn soo adiga hal maalin ah isku mashquulinin hal maalin ah kawalwali wax ahmiyad iyo wax ixtiraam aan hasiin sababtu waxay tahay waa kibiraan qofkaas sababtu waxay tahay inuu kibiraan yahay cadaynaysa wax qiimo aan agtiisa aan ka lahayn adigoo wax qalad ka galin haddana raali gelin ayuu kugu diiday saadabteed waxay cadaynaysaa inuusan qofkaas wax qiimo aan agtiisa ka lahayn wax qadarinayana uusan kuunin maxaa la dhahaa sabab kuugu xanaaqay oo sababkaagaga tegay qofka ka murugo ka walwal raaligelin lagu gaaro midda kaleeto qofkaas waddaad ku raaligelisad helaysaa khaladkii aad ka gashay ayaad ka raaligelin kartaa waddada aad ka gashayna waad kaga raali halka kan kale ee khalad la'aanta kaa tegay aada wadda aad ku raaligeliso aada haba yaraatay aada so qofka sababta midda kaleeto kaaga tegay sababta kaaga tegay waa qof caqli leh dareen leh sababta uu kaaga tagay ayuu hadhow kugu soo noqon karaa waxna kugu qaban karaa marka qofka sababta kaaga tagay saaxiibka ha ahaado walaalka ha ahaado maxaa la waalidkaaga sida sababta kaaga tagay haduu sabab la'aan kaaga tagay midna iyadoo ku qasbantahay laakiin qofka aan asxaabtaada ah ama qofkaad jeceshahay gabadhaad jeceshahay ama wiilkaad jeceshahay ama asxaabtaadaba qofka sababta kugu nacay waa inaad raaligelisaa kana walwashaa qofkaasna maxaa la dhahaa mudnaan iyo qadarin noloshaada sii oo qofkaasi waa qof agtaada qiimo ku leh hadafkana sababta kale qofku hadaf buu kaaga tegi karaa hadafna wuu kuugu iman karaa laakiin sabab la'aan qofkaa tagay inaad ka murgoonin qof sabab la'aan ku yimid laakiin isku day inaad harato oo maxaa la dhahaa amaankiisa harato haddana barnaamijkeenu intaasoo keliya uu ku egyahay qof sabab la'aan kaa tagay waxba ha ka raaligelintana kaa diiday waxba ha ka walwali sababta tahay waxuu kaaga tago idinkana haa jirin qof laakiin sabab kaaga tagay oo maxaa la dhahaa waxaad wax qof for example qalad baad gashay qaladka qofku uu ku aweynaa qof qalad inaad galayso kumuusan fikirayn soo qaladkii uu kaaga tagay qofka waad raaligelin kartaa wadda lagu raaligelin uu leeyahay sabab macquulana uu kaaga tagay هذا روحان الله السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.